بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كأني حاسب نفسك قبل أن يحاسب عليها، نفترض حسابي أنت على حساب. ما أنت يضع رمضان تهي إن شاء الله وحين كجهل دون هدي ربي إدمو فضلك أيلاد هاي الدعاء يوناج أي دعاء الله. رسولك عليه الصلاة والسلام وحشيء دعاء إنه يتهي مسكح ذي عبادته، أما دعاء إنه يتهي يدا لفتر كيد عبادة إنه يتهي إلهي سبحانه وتعالى الله بريء مركا ولا ليال دعوينك وجون وناكسن إلهي سبحانه وتعالى الله بريء كوبسنا يا مقرن ساي وحياه فربضن وحكم ده رسولك وحورنشر عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي والدنيا مقرنا ساي وناق نسي آخرنا وناق نسي عذابتنا نقبل بادي دعاء سوحي كوبستي آخرة يأدون بوي كوبستي dadkii hore ee Soomaalida ahaa waxa ay ku ducaysan jireen waxyaabo maqranaysa cajiib ah inta aanan hor dhicin dadkii hore ee Soomaalida waxay ku ducaysan jireen waxaan doonayaa horta inaan iftiimiyo Aisha waxay leedahay rasuulkan weydiiyay sallallahu alayhi wa sallam rasuul Allah laylatul qadr ka hadii aan la kulmo maxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryaa wuxuu leeyahay rasuulku alayhi salatu wasalaam Aisha waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni marka ducadaas laylatul qadriga ayuu rasuulku alayhi salatu wasalaam Aisha u dardaaray innaguna waxa weeye waa inaan garanaysaa ducadaas mar walba ku celcelinaa khaasatan waqtiyabaha ay ducooyinku mustajaabaha yihiin qofku maadaama inagu aynu Soomaalinahay afka aynu ku hadlaynaan waa af Soomaali yahay waa in aynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala afka inagu aynu fahmayno aynu ku barinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala afka oo dhan isaga sameeyay uu fahmaya laakiin inagu afka aynu ku ciilbaxayno waa inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barinaa sida darteed ya akhwani fillah waxa way maanta dad xafiis tagaysid waxa way turjumaan baad ka xasanaysaa adan afka wadanka aad aqoonin yaa ii turjuma yaa ma garanaysaa raaca ayaa raadinaysaa sababta aad raadinaysaa waa maxay qofka aad wax ka doonaysid iyo adigu sidii aad isu fahmi lahaydeen sida darteed ya akhwani fillah adiga iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aad baraysid baahidaada oo dhameystiran saad u sheegato waa inaad afka aad fahmaysid af Soomaaliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ku baridaa maxay oran jireen Soomaalida hore ducooyinka aadka loola yaabo ay ka magaranaysa ducooyinkooda kamidka ah waxa kamid ah waxay oran jireen balaayada samadu raaran bay oran jireen ta dhulku reeban tabaaluhu riixan bay oran jireen subhanallah waa duca cajiib ah yaani waa xirsaxir weey meel ay balaay ka soo gelsaba helmaysid ducooyinka Soomaalida ay ku ducaysan jireen aadka u wanaagsan dadkii hore maxaa kamid ah ilaahayow dooran karimayna noo door bay oran jireen اللهم وفقنا فيما تحبه وترضى وي إلهي سبحانه وتعالى وحي أتعشهي نوافتش وي مركا ولا أف سوماليون إلهي ودوران كرمينه أذوق نودر بيلهدن مركا ولا ليال إن شاء الله وحن كسو كوبيا أف سوماليا إلهي سبحانه وتعالى أكبرنا أفكينا أن قرنسا كوعي البحنو إن شاء الله وهو لكن عبد الغني حوش ودله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.